afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga gobolka Saaxil Axmed Cali Faxle oo maanta qayb ka mid ah warfidiyeenada kula hadlayay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa uu jawaab cad ka bixiyay hadallo maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay wasiirro ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi waxaana uu sheegay inaanay dhaliishaasi lahayn xisbigooda mucaaradka ah ee wadani waa sida uu hadalka u dhigay waxa aan kelmad ka oranayaa halkan shalayta waxa ka dhacday xaflad loogu dabaaldegayay aasaaskii ciidanka ilaalada xeebaha waxa ka soo qayb galay raxan wasiir ah raxanta wasiiriyo umay imanin inay ciidanka farxadda la qaybsadaan waxa u yimaadeen inay xusbiga wadani halkan ka dacaadeeyaan oo halkan uga jawaabaan xusbiga wadani inay u jawaabaan de xukuumad bay u yihiin oo waa loo baahan yahay laakiin Soomaalidu waxay ku maamulada hoosba hadal leh munaasabad waliba waxa ay leedahay hadalkeeda iyagoo ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hortaagan ayaa waxaad moodaysay inay taageerayaashii xusbiga kulmiye la hadlayaan arrintaasna waa arrin qaldan ma aha bartikoolka ciidanka waxaasoo kale in laga hor yiraahdaa waa ceeb waxaan inta raacinayaa maxamed kaahin axmed wasiirkeena arrimaha gudaha wuxuu yiri SNM waxa abuuray aadan shiine iyo axmed dhagax madaxweynaheenu burca wuxuu ku yiri maalintii burca la soo galay axmed mire iyo maxamed kaahin labadaba madaxay kaga dhacday mas'uuliyiinta kulmiye talo halmaanka miyay u bareeraan mise waa ka bis labadan korneyl ee magicii SNM ku xabag dhakowsanayo walaalayaal SNM waxay dhashay Somaliland idinka xukuma bulshadu way idin ku dhaaratay inaa madaxweynayaal iyo wasiirre ka tihiin waxaan leeyahay bulshada magacan aad soo celcelinaysaan ee SNM ee aad bulshada maalin walba miidiyaha la taagan tihiin halkan aan ka soo booday xadiid baan marooriyay garaayid baan ku findhicishay walaalayaal ka daaya oo Somaliland bay dhashay Somaliland ku xaragood Somaliland ku faan Somaliland bay dhashay oo ka weyne Somaliland aamin ilaah baan idinku dhaariyay aamina Somaliland oo kelmadan SNM kii lagu shahiiday iyo kii shahiidayba madaxba u tihiine ka xishooda bulshada haday jabhada abuurmeen idinka abuuray jabhadaha xusbiga wadani ku dacaadeynaysaan ama ku eedeynaysaan jabhada idinka abuuray ta horena idinka abuuray ta dambe ee soo socotana idinka abuuray waxaan leeyahay walaalayaal inamadii Somaliland ka tirsanaa ee ciidanka qaranka ka tirsanaa ee iyaga iyo qoryahoodiiba aad tiraahdeen ordoo naga taga oo kuwa jooga una raaca aad tiraahdeen waa nin Somaliland kula sheeganaya haddii uu maanta ku soo jabhadeeyo uu ku soo jabhadeynayay maadaa diray mise xusbiga wadani baa diray waxaan leeyahay bulshada ka xishooda oo xusbiga wadanina eedda ka daaya idinka jabhada abuuray dalmida iyo dadmida ayaa la idinku wareejiyay oo la idinkaga tegay oo la idin dhiibay maantana halkay marayso waa aragtaan Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga Saab TV magaalada xeebada Berbera adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida